ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa lagu qabtay barnaamijka xulka xufaad oo ah barnaamijkii ugu horreeyay ee noociisa oo magaalada lagu qabto kaas oo lagu dhiirigelinayo gabdhaha xifdiyey quraanka kariimka. barnaamijka ayaa waxaa soo qaban qaabisay mu'asasada hablaha ee Zaadur Raxiim waxaana ka qayb galaya gabdhaha xifdiyey quraanka kariimka kuwaasoo loo qiimeeyay 5 heer oo kala ah 30 juus 20 juus 10 juus iyo sidoo kale 5 juus iyada oo heerarka kalena lagu saleeyay qaybaha xifdinta ee barnaamijka. ujeedka barnaamijka ayaa ah in gabdhaha lagu dhiirigeliyo xifdinta quraanka kariimka isla markaana la abuuro fursado lagu kobcinayo aqoonta iyo sidoo kale doorka haweenka ee barashada diinta. barnaamijka ayaa waxaa si rasmi ah u daafuray suduwaha wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee Jubbaland mudane Cabdullaahi Sulub Maxamed. hadno ah inaan ka soo muuqano ama aan ka qayb galno meel ay iskugu imaadeen gabdho xufaad quraan ah oo konton ah. barnaamijkan horaan ugu jira waxaa filayaa inuu hadda bilowday. gabdhahana waan ku boorinaynaa wanaagga iyo xifdinta quraanka ay sameeyeen. waxa ugu muhiimsan ee mar walba in laga hadlo ama waa kitaabka Ilaahay. gabdho konton ah oo xifdiya kitaabka quraanka waa sharaf loo soo daadacna dowladda Jubbaland. waxaan rajeynayaa insha Allah inay gabdhaha sii wadaan dadaalkooda iyo wanaagga ay isku bahaysteen ee ah in kitaabka Ilaahay ay xajiyaan. wixii muxaadara iyo wanaag culimada noo joogto ani barnaamijkan inaan furo oo daafurkiisa koow ka noqdo maadaama wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ka socdo yaan laygu talagalay. waxaan ku boorinayaa gabdhahaas annaga wasaarad ahaan inaan diyaar u noqono musaabaqa walba oo caalamka ka dhacdo inay ayaga koow ka noqdaan insha Allah. haddii Jubbaland noqoto iyo haddii heer federaal noqoto insha Allah. waxaan leeyahay ku dadaala acmaasha wadaan iyo xifdinta quraanka yaan laga cajisin. alla isku daya hataa gobollada ee dowladda Jubbaland ka mid ah inaan barnaamijkan gaarsiisaan aan daafurtaan garab u noqotaan ilaanisaan insha Allah. ilaahay ajri xasanaad ka siiyo. barnaamijkan uu noo fulay. assalaamu calaykum waraxmatullahi. sidoo kale waxaa munaasabada ka hadlay gudoomiyaha mu'asasada al-umma Sheekh Cabdirashiid Wali Ibraahim oo ka hadlay muhiimadda xifdinta quraanka iyo sidoo kale taageerada dadaalada lagu dhiirigelinayo gabdhaha xifdiya quraanka kariimka. axkaamtiisa lagu dhaqmo ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkaasi wuu kor yeelahayaa oo kor buu ka dhigahayaa. dad kaleetana macnaha wayadacu aakhariina kuwa kaleetana oo qoom ana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu hoos dhigaa oo macnaha cadamul iimaan baa imaanaysa inayna iimaanba aynan rumaynin kitaabkii inayna kitaabkii ku dhaqmin inayna kitaabkii akhrinin. marka kitaabkan munazalka ah ee ilaahay noo soo dejiyey ee laynagu addoonsaday in aan macnaha akhrintiisa laynagu addoonsaday in la akhriyo oo macnaha lagu tartamo oo lasoo bandhigo qiimuu leeyahay. siiba dumarka iyaga oo dee bulshada Soomaaliyeed qaybaha ugu badan ka mid ah oo rag iyo dumar bay dadku u qaybsan yihiin. maanta la dhihi karo dumarka badan markii ragga iyo dumarka la yidhaahdo haddana waxaad moodaa in ay gabdhaheenii qur-aanka iyo diinta iyo wadaadada ahaa inay macnaha waxoogaa ay yar dansan yihiin oo gabdhihii kaleeta ee iska caadiga ahaa inay ka badan yihiin. waa ogtihiin waddankan Soomaaliya muddo fara badanna burbur buu ku jiray. ha soo kabta hadda laakiin diinku weligeed kor buu ahaa. dhanka kale Sheekh Mawliid Maxamed oo ah madaxa waxbarashada jaamicatu Tawfiiq ayaa isaguna markaasi goobta ka hadlay isla markaana ka jeediyay hadallo la xiriira muhiimadda waxbarashada iyo xifdinta quraanka kariimka. safatul xufaad soo qaban qaabisay macallimiintooda iyo ardadooda iyo mu'asasada waa u mahadcelinaynaa.
waxaa farxad gooni ah inoo wada ah reer Kismaayo u ah Soomaaliya oo dhan u ah muslimiinta oo dhan u ah intanoo gabdho oo xufaad ah iyo macallimiintoodii maanta inaan halkan ka daahfurayno oo la yidhi waxay noqon doontaa sanawi marka sanadka dambe waxaan rajaynaynaa haddii alla idmo 50 gabdhood ee maanta xufaadda ah inay 50 kale ku soo biirto iyagoo intan ka badan aan xafladooda ka soo qayb galno waxaan ognahay inuu quraanku inuu yahay kitaabkii Ilaahay iyo kalaamkii Ilaahay qofka barta ee ku dhaqma ee ku amal fala ee xifdiyana inuu adduun iyo aakhiraba inuu sharaf iyo cizi ku gaadhayo Ilaahay wuxuu quraankiisa ku leeyahay laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qiluun waxaan ii soo dejinay baa la leeyahay kitaab aad ku sharafoobaysaan oo sharaftiina iyo cizigiina iyo horumarkiina uu ku jiro mas-uuliyiinta mu'asasada Zaatur Raxiim ayaa sheegay in barnaamijkan la doonayo in laga dhigo mid sanadle ah iyada oo qorshaha uu yahay in sanadka dambe la soo xulo 50 gabdhood oo xufaad ah isla markaana barnaamijka la gaarsiiyo dhammaan deegaanada Jubbaland runtii mu'asasada maanta waxay soo agaasintay barnaamij la magac baxay Sufatul Xufaad oo ah xulka xufaadda oo ah barnaamijkii isaga aynigiisa oo kale markii ugu horeysay laga qabanay magaalada Kismaayo iyo guud ahaan Jubbalandba dowrkan barnaamijka maanta oo khamiis ah taariikhdu ay tahay 20 Agost 2026 ayuu inooga qabsoomayaa masjidka Cusmaan bin Affan ee magaalada Kismaayo waxaa ka qayb qaadanaya barnaamijka maanta 50 gabdhood oo reer Kismaayo xufaad ah gabdhahaasi 50 waxay isugu jiraan 5 qaybood qayb waxay ku sardinayaan 3 juz qayb 20 qayb 15 qayb 10 iyo qayb 5 ah ujeedka aan ka leenahay barnaamijkan aan u qabanay xulka xufaadda waxay tahay in hablaha ay ku dhiirigelino quraanka inay xifdiyaan ay la noolaadaan liana waxaan ognahay fadliga uu leeyahay qofka quraanka ah in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu shafeeco qaadayo iska daa isaga ee macal waalidkiisii uu la waxaysmaayo in gabdhuhu ay noqdaan ahlul quraan liana ahlul quraan ahlullahi wa khaasatuhu waaye dadka ahlul quraanka waa ahlka Ilaahay iyo khaaskiisii marka insha Allah waa markiisii koowaad dowrkan waxaynu ku bilownay 50 hablooda magaalada Kismaayo barnaamijku wuxuu noqon doonaa hadii Ilaahay yiraahdo barnaamij sanadle ah oo sanad kasto ay mu'asasada Zaatur Raxiim qaban doonto insha Allah dowrka dambe waxaan rabnaa tiro intan ka badan inaan ku qabano Kismaayo sidoo kale waxaan rajaynaynaa insha Allah inayna ku ekaanin caasimadda ku meel gaarka ee Jubbaland Kismaayo laakiin aynu gaarsiino dhammaan magaalooyinka Jubbaland goboleedka inaynu ku qabano afmadow ka qabano gedo in meel kasta gaarsiino insha Allah tacaala munaasabada ayaa ugu dambeyn waxaa soo xirtay wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka Jubbaland Marwa Cadar Ismaaciil iyada oo bogaadin u jeedisay dadaalka lagu horumarinayo aqoonta iyo sidoo kale doorka gabdhaha anigu waxaan ahay wasiirka wasaaradda haweenka marka gabadha mar haday xitaa wax baranayso waxay hoos timaadaa wasaaradda laakiin si qaasa barnaamijkan wuxuu hoos tagaa wasaaradda awqaafta iyo diinta aad baa u mahadsantihiin waxaan leeyahay waa farxad aad u weyn waaye intaanoo gabdho ah oo maanta maxay ahaydey quraanka bartay oo dhameeyay oo maantana ku tartamayo waxay hormuud u noqonayaan gabdhaha inay ku dhiiradaan maaragtay quraanka ay xooga saaraan waan garanaynaa hooyada markay wax barato waa bulsho wax barata waaye in maanta gabdhaheenu ay diinta soo bandhigaanna waa wax weyn waaye oo maaragtay maanta maxay ahayd guul weyn oo noo soo hoyatay waaye waxaan leeyahay Ilaahay ha idin barakeeyo Ilaahay ha idin guuleysiiyo Ilaahay muxuu ahaaye ajir iyo xasanaadna ha idin ka siiyo waxaan ognahay gabadhu markii ay quraanka xafidsan tahay inaysan gurigeeda iyo caruurteeda aysan dayacmaynin marka maanta guul aan gaarno waaye Ilaahay baa ku mahadsan gabdhaha macallimiinta ah oo barnaamijkan ka soo shaqeeyayna waxaan leeyahay idinkana ajir iyo xasanaadna Allah idin ka siiyo in meeshaan ka sii wada intaan iyo in ka sii badanna
maxay ahayday halasii zaa'idiyo fasahaad badan baa jira dhibaatooyin badan baa ayaa maanta maxay ahayday nagu wajahan wax tiktok la dhaha oo dadka fasahaadiyey oo gabdhaha suuradooda xumaynaya oo xishoodkii qaaday oo diinteenii daciifinaya dadka ku dhex jiro marka waxaan rabnaa inaa dadka laga wacyigeliyo bal waxaas tiktokaas in laga wacyigeliyo iyo maaragtay maanta waxaan arkaynaa waa wax maaragtay mucjiso ah waaye